بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhageystayaal iyo daawadayaal dhammaan marti sharafka iyo bahda reer xaqdoor ee kasoo qayb gashay xafladan taasoo loogu dabaaldegayo guuradii labaad ee kasoo wareegtay maalinkii dhidibada loo taagay ururkan. Caawa walaasha Caraweelo soo dhawow walaalo. Seed u aragtaa munaasabadan ballaaran ee caawa hoggaanka u hayno? وعليكم السلام ولا شي حاوتاكو وان كاغو دوني بريدada diiran iyo farxadan ballaaran in caawa dhex mushaaxino ogeysiis ku socota dhegeystayaasha daawadayaasha iyo martida sharafta badan hadda wixii ka dambeeya waxaad saaran tihiin diyaarad magaceedu yahay xaqdoor Empire Airways taasoo ka kici doonto gegida ama airportka xaqdoor International Airport kana foolan to the world. hadaba dhegeystayaal suumanka hala xidho kabtanada diyaaraddu waa anagoo kale ah walaashiin Caraweelo iyo walaashiin Xaawataako yaa la warwarin kabtano ay gacantoodu fadhidaayanu nahay balse farxadiyaysan ina jiidane bal aan ku bilowno oo ku ukano aayado quraana. Xiisaa iyo dareenka farxadeed ba iga tanbadiyo waxaaban ku dhawaaday inaan bogaadinayo hambalyeyn aan ku bilowdo balse waa run hadalka alle wax laga horreysiiyaa ma jiro. gugan caawa ah waxaa qur'aan inoo furfuri doontaa walaashiin Xaliima Maxamed oo wadataa magacii hooyadii labaad ee Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam Xaliimatu Sacdiya. kusoo dhawo walaashay Meega. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باق ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. maasha allah ilaah baan ku dhaartay aayadaha u akhriyay walaalkeen waa kuwo haddii buuraha lagu dul akhrin lahaa ay burbur lahaayeen. subxaanah yaa waduud. wallaahi waxaaba dareen dheeraada leh aayadahan talow macaawa ayay soo degeen mise soddon go ee lasoo dhaafay sababtoo aayadahan waxay ka hadlayaan waaqiciga runta ee maanta ummadda Soomaaliyeed ku sugan tahay. haddaba waxaan kusii dhaadhaceynaa hordhaca xalfada ereyna ka dhiiban doono gudoomiyaha ururka xaqdoor Maxamed Axmed Cabdi Maxamed Sahan. kusoo dhawo walaal Meega. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وندوهي وعن سلام يا رليات برنامج كاتبور بأن تأديني لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحمد سقنا الله سبحانه وتعالى الله صينو دوري الدين إسلامه نغيالك وهديسنو دين تودا دلكودا دادكودا يدلكودا بجعل عليه نغدقى صومالي نتيجة نقول إلالي دول حضنا وبرواقعه eebii naga dhiga xigmadiisa geesiyaal nagu mideeyey af dhaqan midab diin dhul haybad ab iyo isirba boqornihiina baalmariyey bahdilka gaalada lagu salay qarniyo hore muslimka
waxaan u mahadcelinayaa awoowayaasheedii usoo godgalay ilaalinta dhul barwaaqo ah, af hodan ah, dhaqan suuban, diin sharaf leh iyo ummad haybad leh. Kuwii diiday inay madaxooda hoos geeyaan awood walba loo adeegsaday, kuwii labada daarood haddama doortay kana tagay tan hore, kuwii diiday inay dahab iyo diinaar siistaan diintooda, dalkooda iyo dhulkoodaba. Marka labaad aad ayaan mahadsantihiin dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladan, hadday noqoto marti, hadday noqoto xubnaha ururka Xaqdoor iyo weliba ardayda dugsiga Xaqdoor. Tani ma aha xaflad waa xusuus ka mid ah xusuusaha inagu duugan ee aynan awoodin inaynu dhigana ku qorno. Halkan caawa waxaan kusoo bandhigi doonaa dhalinyaro dareenka iyaga wadaniyadeed, diimeed, dadeed ee Soomaalinimada aan qasqaska lahayn. Haddii aan u baahannahay magac iyo hadal hayn, waxaan leef ka soo geli lahayn baraha bulshada, kumanaan caan ahna waan casuumi lahayn, ama hoteelo ayaan xaflado ku qabsan lahaynoo dhowr siyaasi oo adeero inoo ayaan wici lahayn, tviyadana shilmad yar ayaan siin lahayn. Balse waxaan rabnaa in ay walba xasuusanno habeenkii la aas-aasay Xaqdoor 21 Ramadaan 2024 goor sheegtuna ay ahayd 10 fiidnimo ama 4 saac fiidnimo aminta Geeska Afrika. qaabku ku asaasmay 18 qof ayaa qol yar kulan ku qabsaday, waxa ayna galeen doorasho iyo rayi aruurin. Ma xisbi siyaasi ayaynu noqonnaa mase urur dhalinyaro oo shaqo abuur ah? 8 qof ayaa doortay ururka dhalinyaraha halka 7 qofood ay dooratay xisbi siyaasi. 3 qofna garsoor ayay ahaayeen, codka lagu kala baxayna qofkii lahaa halkan ayuu saaran yahay caawa. oo markay sheekadu 7 ahaydba kooxdii ururku u ololeynaysa ayaa hal qof gadaal kaga soo biiray. qolo walbana waxaa la weydiinayay sababtii ay u doorteen, jawaabtii u dambeysay ay bixiyaanna waxa ay ahayd ha xisbi siyaasi waan noqon karnaa, laakiin halkeen ka noqonnaa? xisbi siyaasi waan noqon karnaa, halkeen ka noqonnaa? ma Hargeysa ka noqonnaa, ma Muqdisho ka noqonnaa, ma Jabuuti baan ka noqonnaa, ma Soomaali galbeed? maanta ma jirto Soomaali midaysan. sidaa darteed haddaan isu soo sharaxno dee wax different ah inooma dhexeeya aniga kuwa hadda joogay qaaqlayaasha ah, laakiin aan urur rayid ah ka bilowno, baraarujin, shaqo abuur, samafal, kadib Soomaali garasho iyo garowshiya leh. marka aan helno Soomaalida ayaan siyaasadda u bareeri karnaa. waa ereyadii lisdhaafsaday habeenka. ereyadan caawa way fududahay horta dhegeysigooda dhalinyaro, laakiin habeenkaas dhammaanta iyagu dareenka iyaga ayay bedeshay ama dareenkeena ayay bedeshay. intaa baan kusoo koobayaa ereygeyga. aad baad mahadsantihiin. asalaamu calaykum. mahadsanid gudoomiye maxamed axmed cabdi maxamed sahan. waayahay maxay noo xigi doona hadda si toos ayay noogu bilaabi doontaa xafladeena quruxda badnayd, haddiiba aan ku bilownay diinta islaamka ahayd iyo hordhici gudoomiyaheena. maxaa xigi doona? waa la kala xaq mudan yahay. waxaa ku xigi doona waa dhaqankeenii, waa afkeenii, waa hodantinimadeenii, waa gabay. waxaan meega kusoo dhaweynaya walaalka cabdiqaadir sheekh maxamuud. soo dhawo walaal. gabay dhugasho la yidhahdaa soo jeedinaya. marka gabayga dhugashana waa ereygaasina garasha la yidhaahdaa. wuxuu ka hadlayana waxaa ugu muhiimsan 2 qodob. qodob ka hadlaya wadaniyad iyo dhiirigelin ka hadlaya. marka dhegeysi waa Soomaalidan dhidhiyey dhaaxa maqashii, dhan kastaba ha joogee dadkan dhiirigelinayay, dadkan dhiiga hoos iyo qalbiga wada dhalaalsiiyey, runtii loo dhakaabiyo dadkan dhabada u sheegay, dharaariyo habeen qayladan kor u dhawaaqay, ujeedada dhankii loo watay layska dhaadhiciyey, inta dhinac marsani waa kuwaan garasho dheerayne. caqligay ka dhaawacan yihiin waana shay dhabahe, dhaandhaama baas waxaa ka dhigay dhuuni raacnimoy, raggiisa aabayaasheen dhalay baa dhaafay hadal weyne, mahmaayaday noo dhaheen midaan ka soo dhiigay, inta sacabadow dhigan lahayd nacab ku dhudaya, si uu dhoomo inaad buuxsatay uu dharagtay ku moodo, dhafor xun iyo cadowgaagu yuu dhubni ka garani, waxaa loogu soo dhaashadaa dhunsagaaraahe. markaad hadalku geestu dhacaysi dhadhamisan, dhudhunkeeda taa lama lahayn dhefka raasadahay, macnuhu waa dhiga lama barye ceebka dhowrsadahay, wanaagii dhulkiisana qofkii dhibi iyo hawlmooda,
ee ay waanadii dacar dhegweyn uga dhanaanaato iyo dhuunta kii wuxuu marshiyo lacagi dhandhanto oo sida dhurwaagii ka dhigan cunayay dhiigiisa labada dhamaasanee qalbiga dhagaxa loo saaray waa dhaga dameero kale wax isma dhammaane iyagana khasaara ku dhici oo dhantaalbadii insha allahu kii xumaa dhisa wuu dhutinayaye kii dabindhad bayaba isagaa dhaadka u galay aan ku dhaafa meesha dadkan dhimaaneen noolayne dhallinyarada soomaaliya ee calanka dhowraysa ee inuu dalkoodu dhismiyo dhaqanka doonaysa inkastoo dhallaan iyo gabow ciidda lagu dhaato oon dheeliga u diidnayo xididka loo dhaabay dhaqdhaqaaqa meelaan casrigu weli ku dheerayne dhaqdhaqaaqa meelaan casrigu weli ku dheerayne dhabahaan marayniyo libtuna waysku dhowdahay dhirta iyo dabayshiyo dhulkiyo dheefta iyo ciidda wax dalkeenna lagu dheehay oo dheriya badani markaad si aad u sii dheehato dhugata soomaali dhimiriyo garad waa qabnaa fira dhumar weyne maskaxda dhan hadalkiina waa dhihi naqanaye isxilqaanka noo dhiman maxaan uga dhabcalowne dhurda malaha dhuuxiyo lafiya dhiibsanow muruqe dhirtana waa ka mid oo ka dhuray lala dhamayaye intaan ubuxu dhaadhine ku yaalaanta dhaaladeeda ee uumankuna dhaadanyuhu tacabdhitaystahay hadhowbuuse wuxuu sii dhegtay oo malab ka dhuuqaye haddaneega dhunyaale iyo anigantoodana bilow aadmigii aanu dhashay baan yare ku dhamaye geedaha dhulkiyo howlkarnimuu igaga dhereeye aboorkuna wuxuu dhareer iyo ciid isugu dhoobay ama uu dunduumada uga dhigay ama u dheeraystay waa jinaacu dhilada ka qabay inuu ka dhuuntahay haddaan cadowga soo dhelmadka layska dhuruufin dhexda maalintuu ka gale dhagarna ku geysto dhiriif iyo ururo sida runta kama dhiciyaane dharbaaxadu intay kaa fogtay soo dhabacanayso lama dhagabsadee waa inaad dhabu dareen tahay markaasaa dhankeeda loo gurtaa dhaxla diriiraye oo dhowrta layskaga gudba dhacama waaweyne geedaha dhafbaan lagu yiraa waysku dhunkaniye dhig baan udub ku taagay oon ku xidhay shay dhagaatiye mana dhaliicsan hadalkii anoon ka dhubqaaliine dhabqiina maysataan sheegayaa sidaa dhallankii jalka ii dhagaysto macnaha waan ku dhaadhiciine cudurada wax dhaawacee jirada lala dhukamayo ee sidaa dhimbiilaha dabka ah kaga dhagsiinaysa iyo guumaysi dhuugiyo ka daran balxadii dhagaxa oo inuu dharkaagaba furtiyo dooni dhaxalkaaga labadaaba wixii ka dhacsha ma aha dheleele mid walba waa dagaal dhiiflohe dhubka loo daroe mid walba waa dagaal dhiiflahoo dhubka loo daroe waxyaalahan dharaar noolilataana maan dhugano waxyaalahan dharaar noolilataana maan dhugano dhakhtarnima ka soo qaad bal waa ku dhiliilayahay caanaha dharkaynkiyo haddaan dhirin dhirso horsho oo aan dhammaajiyo ku daro xabagta dhigsaarka oon dhiil xareeda iyo dhari kasoo buuxsho oon daboolka u dhuujiyon dabu dhardharaysto kolay boogta dhayma u noqdaan laba dhaliileene manindhohan baanahay macaanta u dhugan waaye maasha allah maasha allah wardadow caawa horta goorma inoogu dambeysay gabay wata siiqadiisa inaan maqalno haddana codkan halaasiga leh ee alla ku manaystay walaalkeen walle xaqdoor cawiye ayaan ayuuba leeyahay haddii uu hela cabdiqaadir shiikh walaashay xaawataakoy bal maxaa ka dhahday maasha allah alfu mara yaa mabruuk miyay dhihi jireen carabta xilligan oo kale war caraweelo idinka codkiisa ayaad ku mashquusheen baan filayaaye aniga waxaaba i soo jiitay tudada dhaadhaamo ba'as waxaa ka dhigay dhuuni raacnimo oo kaalay maxaa loo lahaa horta soomaalidu gantaalaya nuclear ma haysato erayadan ayaaba ka awoodaya saameyn badan gantaalada la isku cabsi gelinaye
waayahay balansii dhex mushaaxna munaasabadeena ayaa ka xiga waryaa filaysaan hayaay waa qaybtii soo bandhigidda sooyaalka ururka xaqtoore yaaya hadee ururkan xalfadiisa loogu dhex mushaaxayo bal waxyaar aan ku ogaana tagtadii ina dhaaftay ama taariikhdiisa waxaana inoo soo bandhigi doontaa walaasheen salma yuusuf baayo soo dhawow kuna soo dhawow meega waan dhawahay abaayo mahadsanid asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan martida iyo xubnaha ururka waan idin salaamay aad ayaan ugu faraxsanahay inaan idinla wadaago sooyaalkii iyo wadadii iyo soo maray tan iyo markii la aasaasay ururka anigana afka ayaan idinkaga aqrin doonaa screenshotna waxaan idin sameeyey walaalkan garaad samiic cali halkaa ka daawada haddaan ku hormarno aasaaskii ururka xaqtoor wuxuu soo maray 3 marxaladood kala duwan marxalad walba wuxuu watay magac u gaara waxa uuna qabanayay shaqo u gaara balse isla ururkeena ayuu ahaa waxaana la aasaasay sanadkii 2021 magaceena koowaad wuxuu ahaa ururka cilmiga caqli howlihii shaqooyinkii aan qaban jirnay waxaa kamid ahaa wacyigelinta dhalinyarada iyo in dhalinyarada lagu dhiirigeliyo inay dadkooda dalkooda diintooda jeclaadaan wuxuuna ka howlgeli jiray baraha bulshada 2022 waxaan la baxnay magaca Somali Union Organization waxaana howlaha aan qabanayna waxaa kamid ahaa wuxuu noqday dhalinyaro oo ka howlgala iyo Soomaaliyeed howluhu qabtayna waxaa kamid ahaa nadaafada iyo dhirbeerista labadaas diiradda noo saarnaa gobolada uu ku howlgali jirayna waxaa kamid ahaa haddaan qaar kamid soo qaato sayd buu badan yihiin magaalooyinka Soomaaliya inta badan magaalooyinka Soomaalida inta badan waa ka howlgalnay laakiin Hargeysa iyo Jigjiga iyo Djibouti iyo Garowe iyo Muqdisho iyo Kismaayo iyo Gaarisa iyo magaalooyin kala badan baa ka howlgalnay 2023 bishii 9aad 6deedii ayaan waxaan la baxnay ururka midnimo howlihii shaqooyinkii aan qabanay la dagaalanka oromada iyo sida kaga joojin lahayn shisheeyahan dalkeena isaga soo qulqulaya ee bilaa sharciga ah marka waxaa kala kulanay dhibaatooyin badan shaqada markaa haynay waxaan wadnay muddo 7 bilood ah deegaanadii aan ka howlgalnay waxaa kamid ahaa magaalada Hargeysa Boorama Burco Laascaano Garowe Boosaaso Kalkaayo Buuhoodle iyo Gadow marka 7 bilood oo aan hesha awoodnay waxaa jira siyan soo farsanoo kala duwan markii dambe jina badan la wadaagan soo farsaaray qaab xamaasad leh ayaan geeyga Soomaaliyeed u galnay meel walba oo ay Ethiopian joogaan aan ugu tagnay soo saarnay taasina waxa ay sababtay qaab indhabeelnimo ah ay dhalinyarada ururka ay u soo koobtaan oo gobolada qaar sida gobolka Mudug waxaa nagala joogay ku dhawaad 900 oo qof taasina waxay naga dhigtay koox magac weyn iyo shay balse halis aad u weyn dhexda ka istaagay marka waxaan ku soo baraarugnay iyada oo ay ciidamo sidoon ah na dhex joogaan oo waliba ciidamadaasna ay Soomaali ahaayeen sidoo kale dhalinyarada gobolada gudoomiyaasha uu ahaa gobol walba wuxuu lahaa gudoomiye u gaar ah goboladaas ayaa mid walba mar loo hanjabay oo qaarna xabsiga loo taxaabay si walba ha ahaatee madaxdii Soomaaliyeed hadba qaar ayaa naga soo xiriiraya oo naga joojiyay howsha wadaan qalmiyeen waxay ahayd inaan dadkan bila sharci-darrada ah ka saarno dalkeen aan Spain ugu dambeyn dhacday 4 wiil ayaa waxaa lagu xiray magaalada Garowe sidoo kale 3 wiilna waxaa lagu xiray magaalada Boorama hal wiilna waxaa lagu diray Allah oo naxariistay magaalada Buuhoodle iyo gobolka Togdheer halkaa markay hawsha maraysay halka wado inoo furnay kaliya waxay ahayd in aan faraha ka qaadno hawsha balse madagaalka ayagii aan ku kacnay ayaa faraha ka qaadnaa madalka ayagii u kacnay inaan wax u qabano miyaan faraha ka qaadnaa warcelintu waxa ay noqotay in aan kulan qabsano 14 bishii 2024 qodobadii aan soo saarnay waxaa kamid ahaa in aan dhalinyarada xoogoodii aan kala dirno sidoo kale in aan hal qorshe oo gaar ah gooni ah aan fulino in aan foolka doorsano muddadan aan isqarino yani wax dhaqdhaqaaqa iyo dibadana aan soo bixin intiina waan fulinay alxamdulillah ugu dambeyn 2024 March 1 waxaan qabsanay shir gaar ahaan tabartaayada Telegram waxaan ka wada hadalnay bisha soo socota ee Ramadaan waxaan qabanaynaa natiijada shirkaas ka soo baxday waxay ahayd doorkan qodobka koowaad in aan buug sooyaalka Soomaalida ka warramay aan qorno ugu dambeyn 30kii Ramadaan
waxaan qornay buug ka kooban 360 bog oo ka warramaya sooyaalkii xadaaradihii ilbaxnimadii dagaalyahanadii boqortooyooyinkii saltanadihii dhammaan Soomaalida ay lahaan jiray buugaasna waxaan ugu magac uga dhignay anigu yaan ahaa maadaama uu ka warramaya hadii aan ahaan jirnay balse gadaal ayaan ka doorinay magacii waxaan u bixinay magaca dhalin dooris ilaa haddana buugaas waa diyaar qofkii u baahan inuu akhristo qodob kale aan soo saarnay waxaan in aan siyaasadda wax ka barano marka halkaa markii sheekada barisay waxaa jiray dhalinyartii markaas ururka joogtay in ay sameeyeen ballanqaad waxaa jirtay ballan ay galeen qaar ka mid ah dhalinyaradii soo hadhay markaas oo dhabar adeegtay ballantaasna waxay ahayd dib walba oo na soo gaadha in aan dhabarkooda saarno dheef walbana in aan wada qaybsano qaar badan oo ka mid ah dhalinyarada caawanila joogta waxa ay ururka ilaa haddaan ay ugu jiraan waa ilaalinta iyo oofintii ballantii la wada galay heshiiskaas waxaa ka mid ahaa danta gaar in aan ka horreysiino danta ururkeena kow ismaandhaaf kasta oo dhexdeena ka dhaca inaan tala sunno 3 dhibaato darteed in aanan u kala tegin 4 cabsi darteed in aanan u kala tegin 5 qadiyadaha masabka haybta deegaanka wixdamada in aysan lagu weynaanin marka halkaa markii la mariyo waxaan sameynay inaan yegleynay ururka xaqdoor oo balanta lagu yeelay 21 Ramadaan oo ku beegan isla caawadan hadda aan u dabaaldegayno 1445 taariikhda hijriga 2024 taariikhda miilaadiga waxaan qabsanay kulan kaas oo ka dhacay madasha WhatsApp kulankaas waxaa kasoo qaybgalay 18 qof ujeedada kulankaas waxay ahayd maxaan qabsanaa maadaama aan dhamaynay sooyaalka waxaan kasoo baxay 2 arrin inaan aasaasno hay'ad samafal ama in aan aasaasno xisbi siyaasadeed kadibna waxaa loo batay inaan aasaasno hay'ad samafal ah magacii ugu horreeyay oo aan la baxno qaabka meel gaara waxa uu ahaa xil dhalinyaro ilaa haddana wuxuu noo yahay binaasteena camal magacaas kulankii labaadna waxaan qabsanay 14 bishii 4 2024 kulanka waxa kasoo baxayna waxay ahayd magaca aan hadda sidinay ee xaqdoor sidoo kale aan sixinta gudna dhaqaale aan ku horgalno dhalinta xaqdoorna iyagoo ay dhabarka saarteen dhaqaalaha iyagu jeebkooda keenaan waxaan kaloo qodob kale kasoo baxay waxay dinaa shaqo abuur sameynaa iyo xeerarka iyo kala sarreynta gudiyada in la dejiyo markaas alxamdulillah way noo suurtoobeen dhammaantood haddana waxaan u mahadcelinayaa boqoranihu naga soo samata bixiyey xilliyadii adkaa na garad siiyey wax ay anfacayo garan waayeen in badan oo kamid ah waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan dhalinyaradii halgankii adkaa nagala soo qayb qaadatay ee haddeer iyo hadhowba nala sii howlgeli doonta wanaagsantiin dhammaantiin maasha allah ahsanid walaasha Salma Yuusuf warheeda dacaraweeloy inta naqaana way dhaafta caaway waxaan maqli jiray maxaad ka taqaan sooyaalka ama taariikhda boqortooyo hebel maxaad ka taqaan sooyaalka ama taariikhda waxa sabab ku weyn adeeraya hadda sheekadu waxay taagan tahay maxaad ka taqaan taariikhda imbraadoriyada xaqdoor farxaawtaa ka way dhaafsamiya taagan tahay intay dhaaftay aan dalaq gaadhi weliba waxaana rakaabka diyaaradda saaran ku leeyahay aniga haw yaacina haddaad u yaacdaanna halkaas ha u dhaafina haddaad halkaas u dhaaftaana suumanka xidha dar alle ayay u degiyeen bal dhegaysiun baa nafteyda kaga jirnay xoogaa indhaha maydin buuxinaa suga bal maxaa soo socda waa muuqaal dhanka koolka ah hala wada daawado fiidiyo ayaan idiin daarinayo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورين وحان مهد ودان سقناتي الله سبحانه وتعالى وإنه أقل هذا إنه سوغار سيال كان ما أنت جوبلو حق دور ما أهان كلية مقع رو إيوات صالن ولو ممكن يمين داليراد الصوماليات أي وحقبت أبا حلاي مان كران مدلة بس أنكور هاي داليراد اسكو جيدا أي بلابين سفر كان اسكو تشيغ أهسي أي أموجيان عدودة داليراد الصوماليات باب كشاقادة إيو وحقبت كا ورورك حق دور وحو شقياها كدول مالقلين تعاديقا waa dhalinyaro isku bahawday inay dhexdooda ka dhex abuuraan dhaqaale toddobaadle iyo bille ah dhaqaalaha xaqdoor ma ahan maalgelin dibadda ka timid waa mid ku yimid dhididka hantida iyo kalsoonida xubnaha ururka maanta midhihii dadaalkaas waa ay muuqdaan waxaana ururka hoos timaada shirkadda Dole Crushit iyada oo ay hadda noo socdaan 4 mashruuc oo kale oo dalka iyo dadkaba fursad u ah hadafka iyo hiigsiga xaqdoor hadafka iyagu waa mid cad inaan dalkeena ka qabtirno alaabaha dibadda looga soo dhoofiyo iyo inaan dhalinyarada u samayno fursadaha dalkooda gudihiisa uga shaqaystaan iyagoo madax bannaan waxaan rumaysanahay in dalkeenu u baahan yahay gacmaheena iyo garaadkeena si uu u horumaro shuruudaha xubinimada ururka xaqdoor albaabada xaqdoor way u furan yihiin dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed balse waxaan ku midaysanahay shuruud biyo kama dhibcaan ah taasoo ah halka shuruuda ku hortaala ama labada shuruud ama saddex shuruud saad u fahmaysaba
waxa ay tahay inaad ka madax bannaan tahay dhammaan siyaasadda ka jirta geyigeena Soomaaliyeed. Marka labaad, inaad raacdo xeerarka iyo kulamada ururka adiga oon wax cudurdaar ah sheeganayn. Inaad bixiso qaadhaanka iyo lacagta laga qaadayo dadweynaha kale ee ururka ka tirsan. Guntii iyo gunaanadkii waxaan u mahad celinayaa dhammaan guddoomiyeyaashii soo maray iyo xubnihii dhabar adaygeennoo muujiyey. Dadaalkeenu bartan kuma ekaan doono ee dadaal kale ayaynu ku daraynaa. Kii horena waynu sii libaajubaaraynaa. guul ha inagu guuleeyo insha Allah waynu guuleysan doonaa. mahadsanidin. ما شاء الله indhaha u wacana oo indhaha iyadoo projectiya inay noo daaran tahay ku wanaagsana idil lahaanteenba anagoo hal hool wada fidhino. ilaahu adaa noo rumayn karee laba go ayaan wada joognaaye allow cimri dheer caafimaad iyo cibaado suuban iyo camal wanaagsan adaan ku weydiisanay. aamiinta bal noo raaciya. war haddaan si degdegan aan usii galo qodobka xiga bahasha xamaasada ayay leedahay. bal aan weydiin yar isweydiino. ururkan la leeyahay laba go ayuu jiraa uu ilka dhacsaday haddana intaan oodada ay kasoo qayb galeen xalfadiisa talow muxuu qabtay. yaan la xanaaqin waa weydiin albaabadu furan yihiin. saas hadday tahayna waa inaan kusoo dhaweynaa ex guddoomiyihii hore ee talada laga qaaday laguna xasuusto hogaamintii xaqdoor. yaa waaye waa garaadka garaad Samiir Cali Sulub. soo dhawow ex guddoomiye Mega. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومهسنتين إذا لهانتين وحرد عافية قبطان كل بشاشة وايدين مقطعان إلى تهي قفكي شاشة عن عادي واركين عادي هقول في طواتش سي عادي وبالعرب بيقول الدقيسة إن شاء الله تعالى. وهي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنت استبدت waxaan guda geli doonaa guugii hadda 2025 ilaa 2026 labada guu ee ururka xaqdoor uu jiray wax qabadkiisa ma soo bandhigayo hal guu baan soo bandhigi doonaa insha Allah taala. waa laga soo bilaabo 22 Maarso 2025 ilaa 10 Maarso 2025 ururka xaqdoor wixii uu suurta galay. tusmada koobaad waa mashaariicdii noo suurta galay weeyaan. kulliba ma soo bandhigayo shaqooyinka toddobaadlaha billaha iyo maalinlaha kuwa loo qabto ama ururka gudihiisa ama banaankiisa ha noqoto ama baraha bulshada ha noqoto kuwa ma soo bandhigi doono. laakiin wixii mashaariicii waaweyn ee noo suurta galay aan soo bandhigi doonaa. guugan alxamdulillah rabbil caalamiin waxa noo suurta gashay 6 mashaariic ayaa noo suurta gashay ama 6 hawlgal oo waaweyn baa noo suurta gashay. kow balaarinta dugsiga xaqdoor oo 3 dufcadood ah. qalinjabinta 2 dufcadood. furista shirkadda dhool. keenista xirfadley. tababarka xirfadley. bilaabidda wax soo saar. haysiis iyo suuqgeyn. xilli wareejin golaha sare. buugga garsoorka xaqdoor. dhaqaalaha iyo qorista buugga kasma xidigis iyo mashruuca obras. haddaba intaan baan idin dul istaagaya. qodobka koowaad haddaan ku horeeyo dugsiga xaqdoor. dugsiga xaqdoor wuxuu dhigtaa 6 buugaag ayaa wax lagu dhigtaa ama manhaj aan diyaarinay waa 6 buug. waa fasalka Sheekh Bashiir oo fasalka koobaad ah 3 buug ee lagu dhigto waa barbaarin oo diinta islaamka ah af Soomaali iyo Sooyaal. fasalka labaad oo nasiib bunda ah waa barbaarin af Soomaali iyo Sooyaal oo isna fasalka labaad ah. inta markaan kaga soo gudbo dugsiga xaqdoor maanta waxa uu aasaasan yahay muddo dhan 1 sano oo waxaan aasaasnay bishii labaad ee 2025 baan aasaasnay. sidaas darteed sanad guuradii hore anagoo hal fasal furnay ayay noo soo gashay. laakiin hadda waxaan furnay 2 fasal baan sameynay oo waan balaarinay kow dugsiga. 2 dufcadii koobaad ee ku bilownay way qalin jabisay. dufcadii labaadna hadda rabadaantii qalin jabisay. dufcadii saddexaadna hadday fasalkii sare timid insha Allah 3 bilood kadibna dufcadii saddexaad baa qalin jabin doonta. taas waa midda koobaad. midda labaad ururka xaqdoor dugsiga xaqdoor taliya maalintii la aasaasay ilaa hadda waxa ka soo qayb gashay oo wax baratay 200 oo arday wax ka badan ayaa wax bartay. alxamdulillah rabbil caalamiin taasina caalafkooda ay noqotay in ka badanna waan u rajeynaynaa inay noqoto. intaas waa dugsiga xaqdoor باذن الله عز وجل. markaan imaado shirkadda dhool waa shirkad aan aasaasnay kowdii bishii 8aad 2025 ayaan hota iba furnay aan dhidibada aan u taagnay. markii koobaad waxa aan keenay xirfadley ayaan keenay
oo laba gabdhood ayaan keennay oo xirfadley ah saas darteed muddo 2 bilood markay shaqaynayeen waxa ay xoogaa waqtiga ka cudur daarteen iyo hawsha sidaas darteed waxaan sameynay 3 gabdhood ayaan soo kaxaynay kuwaas oo wax xirfada aan lahayn waxaan gelinay waxbarasho oo aan ka bixinay fiigii iyo ilaa waxay buugagtii wax ku baranayeen kadibna waxa ay soo barteen xirfadda crushka ay soo barteen markii ay soo qalin jabiyeenna waxay ku soo laabteen shirkadii dhool si fiican bayna uga hawlgaleen wax soo saarkoodii ayna sii bilaabeen waxayna soo saareen boorsooyinkaas kala duwan hadda dhowrka xabbe halkan taala ay ka mid ka tahay waa nashqada iyo dhisayna anaga noo gaar ah ma aha wax meel aan ka soo koobiyeynay dhalinyaradaas wax soo baratay ayaa keentay biidnillaahi caza wajalla halkanana waa ibafurkii koobaad ee shirkadda dhol intan oo kaliya wax soo saarkeedu boorsooyin kaliya ma aha dhar baa ku jira oo fanaanadaha ku jira oo sarwaalaha ku jira oo jaakeedaha ku jira laakiin waa wili muhiimadda ugu horeysana waxay tahay inaan ku qorno magaca ah wax soo saarkii ummadda Soomaaliyeed oo meeshan made in China iyo made in America ayaan uga saliday inaan ka xiroono gumaysigaas heeriyada dusha nagala saaray marka loo yimaado dhanka ururka xaqdoor gugan waxa u suurta gashay kow doorashada cusub ee ka dhacday 15 bishii 11 November 2025 taas oo xukuumadii hore talada haysay muddada dheer 2 sano ku dhow haysay talada oo taladii laga qaaday oo doorasho cusub loo dareeray oo caawina alxamdulillah rabbil caalamiin gudoomiyaha inoo daadihinayay barnaamijka gudoomiyaha caawa inoo hordhacay inoo ibafuray xukuumaddiisa ayaa talada qabatay loobadii ururka oo hore oo la bedelay oo la sameeyay loogadan ay haanta ku dhex jirto oo in badan aan ku fikirayno riyada ayada ay ahayd looga maxay ahayd haan leh in aan samaysano barnaamijka leedaha habsocodka ururka barnaamijka leedaha kormeerka ururka barnaamijka leedaha xog ururinta iyo barnaamijka la oran jiray AU oo 6 qaybood laga sameeyay guugan oo kali guuga hadda soo dhaafay ayaa mashaariicdaas ay suurta galeen ama ay aan bilownay insha Allah taala dastuuryaraha ururka oo la sameeyay guugan bariga hore waxaan lahaan jirnay buuga weyn ee dhiganaha weyn ee dastuurka un baan lahaan jirnay laakiin bahalkaas weyn la simadaba sidii kareen mid yar baa loo baahnaa ki yaraana wax noo suurta gashay inaan bartamihii guugina soo dhaafay aan samaysana isagana qorista dhiganaha waa kuma xaqdoor oo isagana la sameeyay dhiganaha la yiraahdo waa kuma xaqdoor oo faahfaahinaya sidoo kale waxa la sameeyay dhiganaha la yiraahdo waa tuma shirkadda dhool sidoo kale waxa la sameeyay siyaasadda shirkadda dhool ayaa la sameeyay dhiganaheedii oo iyaduna halkaas guugan inoo suurta gashay sidoo kale hadda guugan hadda gabagabadiisii dhamaadkiisii waxaan ka gaagaarsinay oo alla uu noo suurta galiyay buugga la yiraahdo garsoorka xaqdoor ama buugga maxkamadda xaqdoor ayaan sameynay horey dastuur baan u lahayn dastuurkuna waa habka ururka uu kala socday nidaamkiisa buu ka hadlaa laakiin wixii maxkamad ku saabsan iyo xalinta khilaafaadka iyo nidaamkaas xeer ciqaabeedka iyo ganaaxyada iyo waxaas buug dhameystiran umaynaan lahayn laakiin guugan dhamaadkiisii gabagabadiisii alla inoo suurta galiyay inaan buuggii maxkamadda xaqdoor aan samaysano ama dhiganaha garnaqsiga xaqdoor afsu'aada maxkamad waa af carabi buugna waa af English buugna Soomaali dhigana la yiraahdaa maxkamadna garnaqsi baa la yiraahdaa sidaas weeyaan garsoorna waa cid garta qaade weeyaan ama xaakimka la yiraahdaa garsoorka waayahay biidnillaahi caza wajalla guugan ayay noo suurta gashay isagana waan dhamaystirnay biidnillaahi marka intaas laga soo gudbo dhanka dhaqaalaha sanadkan soo xarooday dhaqaalaha u soo xarooday ururka xaqdoor waayihiisii jiritaan waa 3,800 oo dollar ayaa ururka xaqdoor waayihiisii jiritaan u soo xarooday ururka xaqdoor caawa waxa uu jiraa dhaqaalaha muddada la ururinayo 98 toddobaad buu jiraa ama 98 toddobaad ayuu jiraa sanadkii hore sanadkii koobaad waxay noo soo xarootay lacag dhan $1,782 iyo 39 senti ayaa noo soo xarooday 48 toddobaadna way ahayd guugan marka laga soo bilaabay 22 Maarso ilaa 10 Maarsana waa 50 toddobaad weeyaan waxa noo soo xarootay $2,420 iyo 88 senti wala 50 toddobaad buuga kasma xidigiska ama buuga xidigiska buugan magaciisa waxa la yiraahdaa Soomaalida iyo sirta samada sanadkii 2024 waxa aan qornay buuga Dhalandooris sanadkanna waxa aan qornay buuga cilmiga xidigiska ee la dhaho Soomaalida iyo sirta samada mawduucyada buugani ka hadlaya waa 28 god ee dayax uu fadhiisto xidigaha lagu safro xidigaha lagu guuro ee reerka lagu raro iyo kuwa reerka lagu furo ayaama cunsurka la yiraahdo waa qofku ayaamaha uu dhashto haduu caawa qof dhashto waxa la yiraahdaa qofkani waa gud curbu dhashto ma khayr qabo qofka la waxa la yiraahdaa habeenka buu dhashto waa hoodaale oo hoda buu waa qof taajar noqon doona ayaama cunsurkaasina waa jiraan Soomaalida xidigaha iyo saadaasha colaadaha iyo nabadda iyo barwaaqada waxa jira Soomaalidu xidigaha hadii ay aragto ay ku dagaalanto oo yiraahdaan xidig hebel haduu soo baxo dagaal baan qaadi karnaa liimintana inaga
iskale aduu ma aha faal waa saadaal baa la yiraahdaa meerayaasha kawkabil khalqi baa la yiraahdaa waa kuwan alla uu abuuray arlooyinka dunida qarsoon ee samada ah iyo waxyaalo kala fara badan ayaa buugan aan ku xusi doonaa ku qori doonaa mashruuca obras markaan dul istaago mashruuca obras micnaheedu waa ololaha biyo raadinta arliga Soomaaliyeed waa mashruuc aan rabno in aan ka waraabino dadka reer miyiga ah iyo xoolahooda haraad ku laayay sidaas darteed waa mashaariicda dawladuhu iyo amada ismaamulada tuugteena haysataa ay malaayiinka dollar ku qaadato ayaan rabnaa biidnillaahi caza wajalla inaan geygana Soomaaliyeed ka suurto gelino 10 ceel ilaa 100 ceel intii hadba aan awoodno ayaan rabnaa inaan ka gaarsiino insha Allah taala qorshaha guuga soo socda biidnillaahi caza wajalla waa dhamaystirka obras mashruuca obras dhamaystirka buugan ee la yiraahdo cilmiga xidigiska samaynta mashruuca dalada ururada Soomaalida rayidka ah furista faracyada shirkadda تعالى أساسيد الشركة عصب هيكسي أورك مستقبل كوحة ربنا إن عن قبنا إن شاء الله كل واد لبسنا إلى 6 سنة سوقين تدرج يوح صار كأمة الصوماليات وكوا باره يدان كسينا كهول قلنا أساسيد ورشدات الكجودي أو سمايا وحيالك للدول صدح لسد تشيل عصب أو إسفهانسن يأفر هجامين أمة الصوماليات أو سياسة إن شاء الله تعالى حزب قدرلس وإن شاء الله تعالى أنت جروب دونا dhamaantiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin halkani waa farcyada ururka xaqdor hadda uu ka kooban yahay waa ururka xaqdor shirkadda dhool dugsiga xaqdor barnaamijka caweyska on TikTok ka soo galno iyo mashruuca obras biidnillaahi caza wajalla intaas waxa aan ku darayaa xisaab xirkii dhaqaalaha ee la sameeyay kontakii toddobaad ee ugu dambeysay ama sanadkii ugu dambeeyay kontakii toddobaad ee ugu dambeysay ama 12 bilood ee ugu dambeysay ama 360 maalmood ee ugu dambeeyay hadda waxa ururka xaqdor dhaqaale bixiyay waa 75 qof ayaa dhaqaale bixiyay oo bilayaal iyo isugu jira toddobaadlayaal sidoo kale lacagaha jajabka ah waa qof adigu tusaale imika Mustafa Jabuutawi oo kale markii hore Jabuuti buu joogay marna wuxuu joogay Saylac marna wuxuu joogay Diridhaba maadaama saddex lacagood deegaanada laga kala isticmaalo saddexdii lacagood buu soo kala dirdiray markaas darteed lacagaha jajabka baa la yiraahdaa lacagahan intani waa qiimaha lacagaha la bixiyo qofka jooga waqooyiga wuxuu bixiyaa toddobaadkii 12,000 oo shilin hadii uu bil ku bixinayna waa 50,000 shilinka dhulkan Kenya naga haysatay gumeysiga ku jira ee koonfur galbeed la yiraahdo qofkii jooga 150 shilin buu bixiyaa toddobaadkii haduu bil leeyahayna 600 buu bixiyaa riyaalka qofka dhulka Soomaali galbeed ama dhulka Ethiopia naga haysto gumeysiga naga haysto qofkii jooga wuxuu bixiyaa 120 riyaal buu bixiyaa qofkii bil ku bixinayana waa 500 riyaal dollarku waa 1.25 ama $1.25 toddobaadkii bishiina waa $5 qolqoljoogta iyo qolqoljoog la garanayaa ila tahay qolqoljoogta meelahan Afrika iyo Carabaha iyo dadka jooga iyada qolqoljoogta xagga dibadaha jooga $20 $30 $40 $50 ay bixiyaan hadba wixii lagu heshiiyo ganaaxyadii sanadka dhan waxa la leeyahay wixii qalad galay ururka xaqdor ah waa 15 qof dhaqaalaha ka soo xarooday ama ganaaxi wax lagu ganaaxina waa $18 iyo 50 senti iyo 100 shilin oo koonfur galbeed ah wadarta guud ee daba lacagta soo xarootay ururka xaqdor guugan u soo xarootay waa 2024 mucjisada meeshan ku jirtay baa waxay tahay taariikhdii ururka xaqdor la aasaasay waxay 2024 okay hadda sanadkan dollarka inoo soo xarooday waa $2024 iyo 88 senti hadii aan idhaahno 2024 bishii 8 hadaan idhaahno waa maalinkii la keenay qorshaha la yiraahdo shirkadda qorshaha la yiraahdo kurushidka taariikhdii la keenay ee fikradaasi nagu dhalatay waa taariikhdaas waa 8 bishii 8 lacagta caawa aan noo soo xarootay sanadkana waa 2024 lacagta kale waqooyiga waxa soo xarooday 2,324,200 oo shilinkaas ah lacagta riyaalka Soomaali galbeed waxa soo xarootay 11,220 lacagta koonfur galbeed ama dhulkan Gaarisa waxa soo xarooday 7,590 lacagta naga baxday gugan kharash garayna 782 senti weeyaan waa 22 Maarso 2025 ilaa 10 Maarso 2026 lacagaha la bedelay waa kuwaas الله هدو كوسة متوجل يهاي الله هدو كوسة متوجل يهاي وحي العقل إنك بحثنا هالكي كلام مرمرتي وتاس شنب قول لي كونتن لعيتي كارجوجا قلب كاي يكون بحثي طبيعة الدمين بيكون بحثي صدق عقب كجرير بيكون بحثي شو الله إلا أغسطي $20 واحد يكون بحثي عقب كي عصباية مشهر كي قبله حرف الليل ده سبتمبر أكتوبر لحية طبعا بيبيع كونتنتي واحد يكون بحثي خدمتها أونلاين كأه يا بنجية ترانسفيرس كابي كل عضي لعقتي تعسيدة هيد $14 حيسيس كشركة ده واحد $7 حفلة عاوة أن شغلنا واحد قرش كريه كوبي $10 ولا عقها ينقب حي
ururka xaqdarna caaw xubnaha uu ka tirsan yahay caaw goob jooga ah oo 38daas qof biidn illaahi casa wajalla halkaas aan kusoo gabagabaynayaa aad iyo aad baad umahadsantihiin adkaatay qarjafo maasha allah yaana ka teginay horta mahadsanid isku doomiye kara samiir balse waxqabadkaas soo bandhigtay malwadii ku xaqdoor jirayba mise waa halgu dawaa la khiyaamaaniga warxaaway shibde meeshan ku yaabaan kuududa haddaan ku dhaho maiga rumaysan 1998 dowladii la lahaa Jabuuti ayaa laga aasaasay ma xasuusataa haa si fiican tii xalka ka dhigatay 4.5 Soomaan afkaaga caano bislaad lagu qabay waa iyadii haddaan ku dhaho 1998 ilaa 2026 haddii la isku geeyo wixii ay qabteen xitaa uma dhiganto 6 bilood wuxuu xaqdoor qabtay iska daa 2 goob wuxuu xaqdoor qabtay wallahi been kama sheegine caaw haddii la soo bandhigi lahaa labadii uu xaqdoor wuxuu qabtay dawaaga way noo bariyaha balance dhex mushaaxna barnaamijkeena yaa inoo xiga waraa noqda asxaabay caawa magaxumayna raaci gaadhay marti mininka roogto sooriya la siyaaba la yidhi neefna waa loo loogaay balan ku soo dhaweyn walaalka Cabdirasaaq Bashaar soo dhawo walaal السلام عليكم أنا سمت خير أنا سمت ولا شيء قبل إنه قابل سمت ريها هذا أيدي سلام يا كل جيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن يوم الوديات ورناس خسارة أورك حق دور يوم مرتين شرفت له كلهم كان وين نبوه اليوم مركو هره أنا جو كحلا أنا جو وحلا يوم جع يضلدا يحملها أورك BBS وحسيت ديران هو قلقع له وسلام يا دمان قيس كوين ururka xaqdoor waa ii sharaf weyn in maanta idinkala qayb galo dabaaldega sanad guurada labaad ee aasaaska ururka mudanayaal iyo marweyaal ururka BBS wuxuu mar walba u taagan yahay horumarinta bulshada dhiirigelinta aqoonta iyo abuurista mashaariic ee dhalinyaradu ku hilaabaan waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo inaan aad ugu faanayo saaxiibtinimada iyo wada shaqaynta naga dhexeysa ururka xaqdoor waxaan nahay laba urur oo isku hadaf ah isku himilo ah waxaan naga go'an inaan gacmaha isqabsanno si aan u gaarno isbeddel dhab ah oo bulshadeenna wax weyn u tara 2 sano waa muddo kooban haddana waa muddo aad ku muujiseen dhabar adeeg hufnaan iyo adeeg bulsho oo hufan sanad guuradani ma ahan kaliya dabaaldeg ee waa marag muddo u ah guulaha aad gaarteen iyo himilooyinka waaweyn ee aad hiigsanaysaan waxaan idin rajaynayaa in sanadkaani idin noqdo mid ka barako badan kii hore idinkuna soo kordhiyo hal abuur iyo fursado cusub waxaan xaqiiqsanahay in midowgeena iyo wadajirkeenu uu dhalin doono guulo ka weyn kuwa aan maanta u dabaaldegayno ambalyo mar kale sanad guurada labaad ee ururka xaqdoor insha Allah aan guuleysano si wadajir ah islaamay mahadsanid in badan walaalkay Cabdirasaaq Bashiir haddana waxaan kusoo dhaweynaynaa martideena labaad oo qiimo leh walaalkay Cabdikariin Sheekh Cabdullaahi oo loo goran og yahay oday bilqaay soo dhawo walaalkay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين waxaan rajaynaynaa wanaagsan tihiin aadna u fiican tihiin waxaan hambalyo mar labaad iyo mar saddexaad u dirayaa ururka xaqdoor oo runtii shaqooyin fiican iyo kaalmo aan anaga geli karin soo galeen haddana hoggaanka u haya runtii ururada maanta jira runtiina aan dhihi karno urur ku dayasho mudan qaabka u shaqaynayo aadna aad u qabtid dad 4 qol wada degan oo hal guri wada jira haddana isla xisaabtamaya maasha Allah ku dayashaad mudan tihiin aadna aad u mahadsan tihiin marka xigta waxaan salaamayaa dhammaan xubnaha ururka gudoomiyaha iyo dhammaan qof waliba oo xil ama mansab halkan ku joogta sidoo kale waxaan codkiisa gartay saaxiibkii Cabdirasaaq oo iga horeeyay sidaan filayo hadda uu hadlay aad baan u salaamayaa inta kadib runtii maanta waxaan hayno ma ahan wax shaqo horta anaga ma wadirsaday ma ahan laakiin waa waajib in saaran ilaahay subxaanahu wa ta'ala markii uu diinta soo dejiyay ma uusan dhiin rag gooni ama uusan magacaabin oo Maxamed iyo Cabdi iyo Cabdiraxmaan iyo kaliin saare wa aqiimu salaata salaad hal waa waajib
ummadda muslimiinta oo idilba hadalkaas iskale sidaas si lamid ahna inaan dalkeena u kacna dhulkeena aan difaacna diinteena aan garab istaagno waxay nooga baahan tahay aan ku garab istaagno ilaa dhiigga ka gaarto aan kasoo garab muuqanno intaba ma jirto dad si gooni ah loo siiyey ama waddan si gooni ah loo siiyey diinta inay difaacaan ma jirto xajka oo xaj ah ilaahay baa ilaaliyey haddana maanta uma ogolaanayno in horteenna lagu xumeeyo ama waxyaabo qaldan laga sheego waxay la mid tahay annaga oo sharafkeena iyo cirdigan looga fayay sidaas si lamid ah aan iska difaacno aad baad u mahadsan tihiin runtii aniga oo aan shaqooyinkan iyo waxyaabahan aan aad ugu dheereen aweed waan jeclaa inaan boostiyo iyo waxyaabahaas mar hore kasoo sameeyo waa hore iisii hambaleeyo tiktok halkaas aan idinkasii hambaleeyo haddana waan ka xumahay kidis bay igu noqotay runtii saan dareemayo ururka waana ka warhayaa oo urur waa waqti badan soo shaqeeyey haddana anigana waxaan ka mid ah runtii dadkii uu soo saaray laakiin layma ogo oo cid iga warhaysana ma jirto saaxiibkay garaad samiir sulub baan si khaas isku naqaanaa aad buu mahadsan yahay caawan asaga halkaan i keenay mas-uuliyaddana maadaamana la wada saaray ma helin dowlad si rasmi ah noogu shaqaysa oo nagu dhaxday dhammaantiin waxaad tihiin wadaniyiin hawshaan nin weliba meeshu joogaa ka qabta cidna dhahday ma jirto waxaan ku noolahay caasimaddii ummadda soomaaliyeed anigoo taas dhex jooga ayaan caawana ka shaqaynaa danaha ummadda soomaaliyeed ma jirto cid nagu abaalmarisa laakiin waxaan sugaynaa ajir ilaahay subxaana watacaala inuu naga siiyo in ii sheeg ummadda soomaaliyeed guul aan usoo hoyno waana runtii wax lagu farxo in waqooyi koonfur ii sheeg koonfur galbeed ilaa waqooyi galbeed ilaa dhulka soomaali galbeed intaba in maanta dhalinyar wada joogta isku fikir noqdaan waxaan aaminsanahay inkastoo soomaaliya tiri far keligeed fool ma dhaqdo waxaan aaminsanahay haddii mid naga mid ah ay guulaystaan hadhowna ay fududaanayso in kuwa kale ay guulaystaan tusaale ururka xaqdoor ayaa wuxuu ku guulaystay siyaasadda inuu boos muhiim ah ka qabsado wuxuuna haddana awood u sii yeeshay asaga oo tusaale ahaan ku guulaystay gebi ahaan siyaasadda maanta waqooyiga ka jirta camal waxa uuna rabaa inuu dhiso siyaasad la mid ah middiisa taasi oo cadaalad iyo ummadda soomaaliyeed mid ay wada siman yihiin inuu ka dhiso koonfurta camal way adag tahay koonfurta markaas in lasoo dhex galo la raadiyo dad lagu dhisi karo laakiin maanta annagoo isla soo wada baahanay danihii ummadda ka soo wada shaqaynay aan iswada naqaano haddii halkaas guusha ay kasoo gaarto runtii aad baan ugu farxaynaa annagana waxaan isku dayanaa halkaan sidan guusha ugu keeni lahayn hadday iyagu rag u baahdaan dad garab istaaga naf iyo maalba kusoo garab istaaga u baahdaanna dadka ugu horreeya soo wacanaya annaga ilaan hadda muqdisho aan jooga aniga waan kala aqaanaa qofka maanta garabka haddii garab aan ugu baahdo wax aan ka heli karo iyo qofka kale waan kala aqaana ilaan qofkaan shalay asagoon dowlad iyo ballanqaad iyo waxba helin buu duruuf iyo danaha ummadda ay ugu soo shaqeeyey berri oon guulaystayna ma ilaabayo oo mid xun oo shalay sheedaan soo ahaa ama siyaasiyiin ama balaayo kale soo watay ama hoosta ka soo riixanay kama dooranayo marka aniga oo intaasna idin leh waxaan rabaa inaan idin dhaho hal aayad oo annagana noo ah difaac iyo silsilad aanan loo kala harayn aayaddaasi oo ah aayado fara badan oo isku mid ah way jiraan laakiin caawa waxaan soo qaadanayaa wa atiicu allaha rule number 2 wa rasuulah rule number 3 wuxuu noqonayaa walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixakum marka ugu dambeysa wasbiruu ina allaha maca asaabiriin haddii kitaabo la qorayo anigu waxaan aaminsanahay aayaddan intaan u kala qaado dhowr cutub inaan ka diyaarin karo kitaab keligeed in ilaahay la adeeco rasuulkiisa la adeeco aanan danaha ummadda iyo danta guud iyo waxyaabo dhan aan lagu murmin oo laga dhigo waxyaabo khaas ah oo labada ilaaliyo si annaga dhexdiina dhibaato iyo waxyaabahaas aysan ugu imaanin
kadibna aan u sabarno ilaahayna jirkeenna u yahay haddii aan sabarno waa wax weyn because ilaah asaa noo ballan qaaday ina allaha maca asaabiriin marka aayaddan keligeed waxay u baahan tahay in kitaab xitaa laga qori karo iyadoo cutubyo gooni ah iyo cashiro gooni ah laga diyaarinayo culumta fiqiga haddii aad akhristaan markii la joogo usuul fiqiga wa adiicu llaha bes baa waxaa loo sii kala qaadayaa 10 qodob iyadoo mideeda kasii anigoo kaashanaya usuusha fiqiga aan lagu dhihi lahaa kitaab ka qor waxaan aaminsanahay inaan ka qori lahaa 12 cutub halkan aayad oo dhowr iyo 10 cashir ama dhowr iyo 50 cashir soddon dhowr cashir aan ka diyaarin lahaa aayadaasna waan idin siiyey waxaan idinku leeyahay aayadaas haysta ragga hoggaankiina idin ahna waxaan leeyahay ata'muruuna annaas bilbir watansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaab adaanu mahadsantihiin runtii wax la idin dhiibo waxa idinku qiimo badnaa waa idin siiyey ma jirto talo kale ama tay kale ama awood kale aan leeyahay idin dhiibi lahaa adaanu mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullah aad baad u mahadsantahay walaalka cabdikariim meesha hadda la isla haystaa way ila tahay balaan yaragta leecna maxaa inoo xiga war carraweelay walaashay maxaa xiga walaashay xaawataakoy malaha meeshan caawa cadaalad darra ayaan ka jirtaa filayaa qisankii waxaa dhacay inbay haayo xeerka dhaqanka soomaaliyeed kumaynan jirin in arrin labkeeda la keeno dhadigeedana laga tagee bal tiro 8 hoo 5 saan madow kurid bal adba suureyso lafta sinaha midda la seegay allahayaay maxaa hadal saartay caawa war haddaan kula garowsaday gaf ina aadamana nahay barnaamijka 8 qof ayaan ku soo dhaweynay 3 hore haddaan calaamadeeyo oon qaato 5 kalena aan iska tuuro warkaaga waa labada sin ee miskaha ah timidigii waa gabay oo laba loo tixgeliyaa balse tabiixna dadig baa loo asteeyaa waad mahadsan tahay qaabkaad igu tilmaantay hawraarta war ku soo dhawaada dhegaystayaal iyo daawadayaal hadda waxay noo xigi doona waa buraanbur waa astaanta dumarka Soomaaliyeed waxaan ku soo dhaweynayaa walaasha Hodan Maxamuud soo dhawow walaal adiga waqtiga inoo ilaalinaya salaamu calaykum saaxiibayaal dhammaan salaamu calaykum sabsahaf baan idinka maray salaad dabadeedna hambaa halyaan idin wadaa dhammaantiin halyeey iyo howlkarbaatiin allaha maaliga mahad baan u celinayaa mas-uulka noo yimidna mahad baan u celinayaa xabaa la dhigahayo xaflahadeenu waa mid sare xabaa la dhigahayo sadrihiga wax laga yiraa xaqdoorka soo saahanshisada harlaydka samaada mara shirkada soo saaharay saxiixo dul saarayahay xaqdoorow saldhig baa haatiin saacadii kastaba xaqdoorow sanadkii dhashaba waad saraynaysaan xaqdoorka soo horay Soomaali gees kastaba xaqdoorka u saxiixan samaha dooninayihiin xaqdoorka soo saaharay Soomaaliyaho isjecel xaqdoorka noo ifiyey xaqaha baadilkana ka tagay xaqdoorka noo furay dugsiga oo dalkiina baray xaqdoorka soo saaharay ardaahadeena heerka sare waxaa heerka hana gaarsiiyey howlkarnimo haddaanu imahada xaflahadeena xiisaha leh kamaba xiiqahayna xaflahadeena caawa timid sanadkiisa guul baa rajaynaynaa maasha allah mahadsanid walaashay hodane ciyaalkan dambe waxba kama garanayaan
baraambur anawale maalin aan dhashay mid la ii meeriyey oo hooyaday tirisay ilaa hadda waan kaga burjisareeyaa asagee haddana xaqdoor gugan waxaad tix buraanbur u marisay walaashiin hodan maxamuud kabax jiroo joog xaqdooro war dhegaystayaal arrin baa jirta aan wax xog dheeraada aanan ka hayn oo maxay tahay xarooyalay arrintaasi sawirkan qolka lasoo dhigay in lasoo dhigaan filayaaye waxaa soo dhiibtay kooxda majaajilayaasha ee xaqdoor bal aan idiin guud maro riwaayadu magaceedu waa indhabiriqsi waa qof indhaha kala hayo oo weli nafta kusii jirto micnaha waa meel la wada rogman yahay oo halka sii nool yahay weeyaan waana maanta xaaladda ay ku sugan tahay ummaddeena Soomaaliyeed 3 wiil ayaa matalaysa riwaayadan waana aaran ka yimid geyiga Soomaaliyeed isaga kala yimid oo baadigoobaya marxalad ka duwan tay ku nool yihiin mid walbana dhibaabo gaara ay ka jirto sabadii uu ka yimid ama geyigii uu ka soo hayaamay yaaran war igadu ku daalinayna 3 eray ayay u taagan tahay xaqa doorka dhalinyarada heel walaalnimo ehelnimo islaamnimo dadnimo Soomaali weyn jilayaasha riwaayaduna waa diiriye orey waqooyiya xaashi orey koonfura samatar orey Soomaali galbeeda ku soo dhawaada waxda jilayaasha xaqdoor meega idinkoo mahadsan waan dhowna السلام عليكم waan dhownahay inaad maqashaan warajiinaya marka hore shimbirkiisu la duulaayo waan salaamaya samatar iyo xaashi oo saaxiibada waan kugu taqmiin السلام على رسول الله وعلى الانبياء aynu bilaabano marka hore waxaan salaamayaa ururka iyo marti sharafta assalaamu calaykum safkan caawasid jiritaan sanad guurow buuxow sideba aad tihiin balsalaaniga hooya marka xiga martida sugan dadka saxanka dheer iyo marka xiga martida sugan dadka saxanka dheer iyo soo galay dadaalada caawana ku sugan madal sanad guuro sharafe soo dhawaada saaxiib waa halkaasi oo martida salaan ku soo riyeynay waxaan arkaynaya inay naga qaadeen inay ka soo go'day sadriyadayada anaa ka socda oo kaa guddooma saaxiib horma ay noo sii waynu wadnaa xaashi kulleytay waynu waa majaajilo balse waxay ku leedahay micnaha aad u weyn indhabaraqsi aynu ka bilaaban ruwaayadeenii halkan ay ka bilaabmaysay waa xaqdoor si kale waa xorriyadoon si kale waa xisaabtan doon si kale waa xumaandiid si kale waa xifdi ammaano ama waa xifdi ammaano lumaysa si kale waa xurmadoon si kale waa xanuun dile si kale waa xurmad noolayn si kale waa xiisad yarayn si kale waa xarakayn iyo xoojintii xaqa eebe xitaa waxaan adaldalaysa eebo xaashi xageebad socotaa yaa tahay balse micnaha mayay fahansii afaarina docdaraysan ee aad iskaga hadlayso eebo waxay tahay marka hore intaanan ku siin afaaraha iga dacduraysan iyo hadalka iga yamyamaysan bal halka aad ka socoto iyo waxa aad u jeedo ee ujeedadaadu tahay inaad noo sheegto waa muhiim waa wiil hadalkaaga soo jeeteen erayada aad ku hadlayde bal
مشي كده عاد فات كيبو isadkayni maayo bal hadda maxaan kaa caawiyaa kuma xaqdo xaqdoor waa dad hibaysano hagarlaawi dadkoogii haybinteeda dambaysiyo ayahooda adduun inta ay jiraan u tasho ka shaqeeya arrimahan xusi doono ما هذا هو كل سبب ha degdegin xaashi ما يسوى الوهي degdeg وشو haa ninkan uu dhegeyso ku dhageystay heed dadkan aad magacooda sida muunada buuxda aad markii u ammaantay xaqdoor waa dhalin weeye xaqa raadintiisiiyo xurmadii ummadoodiiyo u midayda xorayno xorayntaa kala dhowre waa xaggii maskaxdoo dadka xaadirkan jooga ee ku nool aradkeena waxay xaalad abuur iyo xaabadii hurinaysiiyo u yihiin xarakaad xun qabyaaladii keentay xaaladaasi darteed xaashiyow sidan sheegnay waxaa meesha tan yaalay mar xamaasad kacdoo xurguflaysay ayaamo aan xisaab aan lahayn xasilooni inaad irma ahayna waa xisaab darajaad leh waxaanuun dawadiis waa qorshe noo xarakaysan waa xisaab ka dambayso fahmayo hadalkaaga horaartiisana dhugtay hadda xaad fagartay xaashi xoog dhaqaalo la keedshiyo sadaqoo la xeraystiyo xog dhaqaalo la kaydshiyo sadaqo la xeraystiyo xooga aanu hurayn iyo maskaxdoona xujayniyo maxsuulkeeda cunaan ku xisaabtamaynaa miyaad xiisayni lahayd master xaashi deeriyo waxaad sheegtay waa waxa aan ku daalnay oo dadku way ka qanceene miyaad noo sameyn wax kale xaashiyo wax ogaalku dhankayga waa ka muhiimi bal maxaad ku caddayn inay qaar hori daaleeno dantan ay ka qanceen qaar horaa sida maanta xaqdoor xarakaad u sameeyey qaar horaa sida maanta xaqdoor xarakaad u sameeyey oo xaajadii wadwadeen meel xun ay ku dambeyday xaashiyow kan walaalkayow xaqdowr maalin xamaasad xaaladuu degdeg ahayd xaajadooda ma keenin ku xisaabtan ammaan iyo xeelo siyaasad xaajadooda ma keenin xirfadley tartamaysa xaaladay ku jiraan si ay unu hantaan ku xisaabtami mayse waa dadtooda uu xeel dheer xaragiyo ammaan midna aanan danayn waa dad daacad ilaah caloolxaad mid qabow oo aan lahayn khashkhashaad waa dad xaaladii ummadooda xorriyadii caqliyeed iyo xirfadii anfacaysiyo anfacay tabcan layd baxaasho loogaga dhaartay u doonaya xaqoodo iyagoon diranayn ficilkii wax dhaqaajiyo muujinaya xarfaanto xoogga kiisa la quuto si wax loogaga aayo u horaya dadkooda masar deeriyo xaqdoor maxay dheeryihiin dhalinyarada kale soomaaliyeed u kacay inay samata bixiyaan dadkooda niyo ilaa hadartaa aan natiijo ka keenin niyo maxay dheeryihiin iyo masheegtida caashiyow in adeer dadkan aan ka hadlayno daa'im bay cuskadeen dulqaad baana dabraya dhantii ay u socdoona dihin bay arkayaan damqashay ka qabaan dadkooda dil haysto duruuf ayay ku raagtay damiiraan damqanayno dadkii maamulka ahaa aynan diirinba oo ay xoolihii dadka baahan iyo masaakiinta dahaaban hoos kasii daldashaan daa'im bay cuskadeen damqashay isgasheen mar dabayli timaado dadku liicaya maahee waa damiir la adkeeyo diintu ay xajinayso waa dulqaad la miseeyo aan durbaan la garaaciyo been la duubtay ahayn
hadda fahmi taas iyo horaarta hadalkaaga hanaqaad gara hanaqaadka garaadka himilooyinka fiican midurbeelka dadkiina hantidaad u horeysaan u soo jeedka habeenka hamigiina wanaagsan waa mid aan aad u jeclaaday oo aan u soo hanqaltaagay bal haddaan ku su'aalo maxaa hiigsi idin ah waa arrin lagu farxay inuu damac iyo xiisaynku soo galay ururka xaqoor waxaana ku leeyahay hiigsigaan wadanaa waa hiraal ummadeennu muddeer hamigeediiyo ka maqan hadalkeedu waa hankii ummadeed waa dalkeennan barwaaqadu hirqanayso dhexdiisa waa hashii magaceedu mandeeqaan ugu yeernay yaan haaneedka ka joogna hantidii qarankeenne iyo hadalkii gacanteena iyo howlqabadkeenii inaan hoos u dhacoodii wax ka toosina maanta ayuu hamiga iyagu haa ama hiigsiga iyagu haa hanaqaad wacan weeye halgan loo kaco weeye waa dad haan ku dhuraya dhididkii horinaye u hilooga dadkooda horumarkay raadinayaan inay soo fuudiyaan ma hilmaami karaaye halkee loogu hagaagaa aga asawriciina baxaya hadalkaas waxankiina baxaya yaa saaxiib u wadee xaajadaad sarsarteen xusuudkiina baxaya si kastoon u dhegeysta saaxiib waan fahmi waaye bal sifeeye xaqdar haa samatar inta aanan ku siin sooyaalka xaqdoor ama aanan ku siin sooyaalkiisa xaqdoor saaxiib bal su'aal sidaan filanayo socota aad ahay sidee baad ku ogeyd sabadkeenni wacna ayaad kasoo safar qaada waa soomaali galbeed saaxiib weydiintaad igu soortay warcelinta adduunku waa safar weeye ka qaadasho mooyin socotaynu ah ku sugnaa amnigii warna waa aan sidaa wadna eebbe dhankiisa sidii aad garanaysay saaxiibaan ba ahaayeen suuradan ku sifeeyay sida uu halgankii siraadkii dhaqdhaqaaqo sahankaan fiilanayo sareedaa ka dambeysay balse saaka aan joogno sidii aan ku ogaa dad sagsaag iyo siir xun sarbeeb iyo sariigad kol si cad loogu badheero loogu sii xajinayo siriq aan baxirmaynin ayuun baan saaka ogaaye sirta aad qarinayso si cad noogu bayaan saaxiib sirta aad weydiinaysaa kolley waxaan filaa inay tahay xaqdoor dallin loo sawirayo umaagsiijo naftooda jeeka gaalku samaystiya suudalka iyo hoogasta xariirta ibkoo dhan dad siraad burqanaya iyo soohdi barwaaqo samatar loogu tilmaamay xaqdoor waa dhalintii sabaalayni lahayd xaqdoor waa dhalintii sahwigii ummadeenna suracaadda hoggaanka surmaseegtadan baa dadka dhaafin lahaaye ka sifayni lahaa xaqdoor sifadooda halbeeg saamigooda garowshi waa surac waayo ku raagay sargaag iima ku reebtay ummadday ka dhasheen se waxay u kaceen soo noolaynta siraad waayey iftiimay balse saan ku ducaysto saatir ha iga ajiibe waa kuwii ummadooda salowga maanta ku baahsan safradii iyo xanuunka sunta teeda qagaadhe ay ku soortay qabyaalad ka sifayni lahaa waa kuwii saaca qabow soorta caano macaan ku dabaali lahaa saatirowna ajiib sida aan rabno caawa iyo nagu soorsamahaaga intana waxay daba socotaa shiliinka riwaayadeena oo waxay isku soo koobsanaysaa halkan dad martida joogta iyo mudanayaashaba ayagoo aan marti ka lahayn waa laba eray dadka samaha falayow saatirkayni guulee surmaseegtan iyo dhowr alla helinka saxan iyo xaqa idinku sooriye oo idinku sabaale halkana waa si aad u fahantaan inta aanan fahan hawraarta iyo hadalka sheekadeenu soo dhaafnay si aynu ugu tilmaamno si u fahmi lahaayeen bal si aad u fahantaan sifaalaha iyo ereyada dib u soo dhigo eeg sooyaalkii soo dhacay wabilaahi towfiiq aad iyo aad ayaan ugu mahadsantihiin waayoqarqadsi weeyaane waxaan filaa inaad fahantiin aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin dhammaantiin
salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam arxay sameeyeen aga awgoodii laga tunaad la jinay baayo balamajido balamajido riwaayad leela marwaya weli dhacda dhacaysa caawa taariikh baa qormaysa walle iyo bille iyo tale waa mid la xusi doono oo la xasuusan doono tan caawa aan maqalno waayahay waxaan soo gaarnay qaybihii xasaasiga ahaa dhegaystayaal mudanayaal iyo marwooyin waxa la gaadho leen dhammaadkii xafladeena dhankaas iyo gabaldhacayaan ujeesayna insha allah hadda waxaan kusoo dhaweyn doonaa gudoomiyaha ururka oo bixin doona shahaadooyin kala duwan gaar ahaan haddaan si yara carab dhabo ardayda qalin jebisay bishii soon dhexdeedii ee ka qalin jebisay dugsiga xaqdoor kusoo dhawow gudoomiye maxamed axmed cabdi maxamed saan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدعو سلام يا دنيارتا يا مرتدا أدكو قرطة ضبانة أو مرتكا لو عصبنا واي جوتا لكن واسقرين يعني إما لحن ورنيو هو محاجرة دي فلان بايقو سعوتين ما فلان بدي لإيسي دي سامبل يا وايهي عاو هالكان وحاوي وحان آدوكو محدو عدنا يارتو وهالكان حفلتنا إنا لتشوغو وحفلتو آدو إنوغو قرحيني سيدو كرانا كمت أها سيل حفلتو دينا يهيد عاوة dhalinyarada difcada labaad ee dugsiga xaqdoor oo qalin jabisay 15 Ramadaan ee hadda la soo dhaafay bishan hadda aan ku jirnaa afarteeda dhalinyartaas baan caawa halkaan ku guddoonsiin doonaa insha Allah shahaadooyinkoodii insha Allah screen-ka baan furan dabeetana halkaas baan ku guddoonsiin doonaa insha Allah inaad wada joogtaan baan rajeynayaa insha Allah dhalinyarta waya sidoo kale aan wax yar idin sii bidaamiye caawa xaqul ciid badan halkan waa laga qaadanayaa waxa weeye diyaaraddu ma degin la socda xaqul ciid badan waa la degaysaa diyaaraddu insha Allah fadlan kor u hayo weeye ala sii diyaarshay insha Allah waya haddaan screen share-kayga furto gudoomiye xaqul ciidka shabaqal gaari wala khayraya insha Allah dhalinyartan aan marka hore guddoonsiiyo wada aragtaan soo maaha si fiican baad u arkaysaan ها قدومي halkan haddaad soo wada fiirisaan caawa waxaa inoogu horreeya malaynayaa caawa halkan shahaado lagu guddoonsiin doonaa oo shahaadadan waxaa mutaystay Zakariye Aadan Xasan ardaygaani waxa uu dhameeyey dugsiga xaqdoor wuxuu dhameeyey dugsiga xaqdoor barashadiisii dugsiga xaqdoorna waxay ahayd oo soo galay waqtiga uu soo galay 10kii bishii 6aad 2025 ilaa 22 bishii 2aad 2020 waxa uuna bartay suuyaal Soomaali iyo barbaarin aan leeyahay insha Allah inay ka dhigo aqoonta baratay mid dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba u difaaca insha Allah oo wax ku qabta mahadsanid qofka xiga ee halkaan aan shahaado ku guddoonsiin doonaa waxay tahay waa inanta waayo inanta waxaa shahaadada mutaysatay Bushra Cabdiraxmaan Maxamed ardayadani waxay dhamaysay barashadii dugsiga xaqdoor ka bilaabmata 10ka bishii 6aad 2025 ilaa 22kii bishan hadda aan ku dhex soo dhaafay labadeedii 2026 waxayna baratay suuyaal Soomaali iyo barbaarin mahadsanid ayaan ku leeyahay cilmiga aad baratayna ilaahay kugu anfaco mid dalkaada iyo dadkaada iyo ummadaada ugu adeegtana ilaahay ha ka dhigo qofka saddexaad ee caawa halkan lagu guddoonsiinayo shahaadadan waxaa mutaystay Ifraax Daahir Xirsi ardayadaanina waxay dhamaysay waxbarashadii dugsiga xaqdoor 10kii bishii 6aad laga bilaabo 10kii bishii 6aad 2025 ilaa 22kii bishii 2aad 2026 waxayna baratay suuyaal Soomaali iyo barbaarin waxaan leeyahay insha Allah cilmiga aad baratay ilaahay kaaga dhigo inaad ku anfacdo oo aad dalkaada iyo dadkaada iyo ummadaada aad u adeegto waxaad baratay waa suuyaal afkaagii barax tirnaay iyo diintaada islaamkaba qofka xiga haddaan u galo kale waxa weeye shahaadadan asigana waxaa mutaystay ama mutaysatay waa inane cadaaladka ma jirtay hablihii baa ku soo batay waayina nimca Cabdiqaadir Ibraahim ardayadani waxay dhamaysay waxbarashadii dugsiga xaqdoor 10kii bishii 6aad 2025 ilaa 22kii bishii 2aad 2026 waxayna baratay suuyaal Soomaali iyo barbaarin insha Allah ilaahay
cilmiga aad baratay mid aad dalkaada iyo dadkaada iyo ummadaada ku anfacday ilaahay kaa dhigo mahadsanid waa dabar adeegteen dhalinyarta dhammaantood halkaa waxaa inoogu ekaay waxaa jirto inan kale oo caawa ayadan halkaan aysan joogin ee la yidhaahdo juwayriya waa hay halkaan may joogta caawa aad baan uga xumahay insha allah halkaan waxaan shahaado sharaf ku guddoonsiin doonaa horta halkaan waxaa lagu mahadcelinayaa sidoo kale bare caawa waxaa inala jooga halkaan bare anigoo ku hadlaya horta marka koowaad magaca guddoomiyaha ururka xaqdoor iyo dhammaan bahda ururka waxaa sharaf weyn inoo ah inaan maanta shahaado sharaf guddoonsiino bara qiimo badan oo door muuqda ka qaatay barbaarinta iyo wacyigelinta jiilka soo koraya dadaalka aad gelisay bar cabdikariin cabdicasiis maxamed caawa halkaan inuu joogaan jecelahay wacyigelinta jiilka soo koraya dadaalka aad gelisay baridda sooyaalka soomaaliyeed iyo kobcinta akhlaaqda ardayda waa mid mudan qadarin iyo xushmad shahaadadani waxay astaan u tahay ay u muujinaysaa mahadcelinta iyo qadarinta aynu ku hayno aad baad u mahadsan tahay bare cabdikariin cabdicasiis maxamed awi screenka halkaan baan ka tusaynaa insha allah caawa aad baan uga xumahay waayo shahaadooyinkan oo dhan waxay ku baxayaan fogaan arag waayo ma dhowin oo qof isku meel aan joogno maaha aad bay igu farxad badnaan lahayd caawa haddaan dhalinyartaas ku joogno meeshaarka baan guri soo saaray shahaado sharaftan waxaa mutaystay cabdikariin cabdicasiis maxamed waxaa lagu maamuusayaa doorka hogaamineed uu ka qaatay dhismaha dugsiga iyo juhdiga uu ku bixiyey baridda taariikhda dhaqanka iyo wacyigelinta ardayda mahadsanid kun jeer bare aad baan kuugu mahadcelinaynaa waa guntii gabagabadii baan isla soo gaarnay iyo shaqul ciidkeeniyo soo dhawaaday shaqul ciid haddii la maqlay hurdada waa tagta soo maaha waayahay marka koowaad weer yar oo mahadcelina rabaa caawa halkan inuu mariyo dhalinyarta dhegeyso insha allah bismillaah waxaan halkan ugu mahadcelin doonaa dhammaan xubnaha ururka xaqdoor ee caawa ka tirsan goobjoogna u ah sanad guuradii labaad ee ururkeena lama soo koobi karo horto farxadayada waana xusuus ii gaarayay bimahadii intaa kadib waxaan si gaar ah ugu magac dhabi doonaa halkan dhowr qof oo ka tirsan ururka xaqdoor kuwaasoo gugii ina soo mooday ama 12 bilood ayna soo dhaafay si aan caadi ahayn ugu howlgalay ka shaqaynta iyo horumarinta ururka xaqdoor inkastoo qof walba oo xaqdoor ku jira uu ballan qaaday si qalbiyan ahna ugu dhaartay in dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa ugu shaqayn doono si hagar la'aan ah haddana rag hadday tartan galaan waxaa la hubaa in biyo kama dhabcaan ay tahay in qaarkood ay kasoo dhex bixi doonaan qaarka kale haddaba gugaan waxaan u mahadcelin doonaa insha allah dhowrkii qofood ee ugu saamaynta badnaa uguna waxqabadka badnaa ururka xaqdoor haddaan isyara dul istaago aan ku bilaabo dhanka guddiyada waaxda isla xisaabtanka kulamada waxaad maqasheen caawa waaxad badan baa laidinkaga soo sheekeeyey ururka xaqdoor waxqabadkiisa baa laidinkaga soo sheekeeyey sooyaalkiisa baa laidinkaga soo sheekeeyey aragtiyadii ururka dhaqaale la iska aruuriya baa laidinkaga soo sheekeeyey waxaasoo dhan nidaam iyo karti iyo hal adeegnimo dhalinyaro qaarkood bay ku imaaday waaxda koowaad ee waxaan rabnay inaan u mahadcelino waxaa weeye waaxda isla xisaabtanka kulamada waa guddiga keliya ee gugan bilow ilaa dhammaad ugu shaqada badnaa uguna howlkarsanaa ururka xaqdoor bal aan tilmaamo shakhsiyaadka aan caawa u mahadcelinayno 1 xaawo mahdi maxamed oo caawa ku jirto dhalinyarta inala daadihinaysay barnaamijka waa guddoomisada hadda talada haysa waaxda isla xisaabtanka kulamada sidoo kalena loo yaqaano waaxda baraarujinta kulamada guddoomise waxaan ku leenahay mahadsanid kun jeer dadaalkaagana halkaas ka sii wad guddiyada kalena waxaan rajaynaynaa inaad hormuud u noqotid mahadsanid kun jeer qofka labaad ee waaxda isla xisaabtanka kulamada ku jira ee caawa halkan loogu mahadcelinayo ee aan jeclayn dhalinyarta in aan si aad iyo aad u qurux badan shahaadooyinka annagu aan ku guddoonsiino ee caawa fogaan aragayga naga noqotay aad baan uga xumahay waan ka raadgelinayaa qofka labaad ee halkan caawa laga bogaadinayo laga mahadcelinayo waxa ay tahay loogu mahadcelinayo waa shakhsi ku suntan afgaabni hadal yari laakiin marka la joogo waaxda isla xisaabtanka kulamada waa shakhsi ku astaysan shaqo badni howlkarnimo iyo kasoo bixidda shaqadeeda waa inanta xaawe iyo dheeraadba shaqadeeda iyo weliba dheeraad mahadsanid kumanaan jeer ayaan ku leenahay walaasheen xaawa cabdiraxmaan maxamed
qofka saddexaad ee halkan uga mahadcelinayna waxa ay tahay Saynan Cabdicasiis Cabdinaasir waxaan aragnay iyadoo gudoomiyaha ka ah waaxda isla xisaabtanka kulamada iyadoo xubinkaaba saas oo ay tahay waxay caan ku tahay howlkarnimo daacadnimo iyo inaysan dhicin in shaqo ay baaqi ku sii ahaato waa shakhsi dadaal badan mahadsanid kumanaan jeer walaashii waaxda dhaqaalaha halkan waxaan uga soo baxnay waaxda isla xisaabtanka kulamada waaxda dhaqaalaha waa mid ka mid ah waaxaha ugu shaqada badan kuwaasoo si maalinla toddobaadla iyo bilaahba u howlgala waa waaxda labaad ee ugu mahadcelin doona caawa halkan waa guddi diyaarsan oo howlkar ah guddigan qofka laga soo xulay ee arna caawina halkan ugu mahadcelinaa waxa ay tahay waa inane waaya lee hablaha inantii afraad baan maraynaa soo maaha xamdi maxamed maxamuud waa gabadh astaanteedu tahay mufakarnimo raadinta hal mar weliba helida horumarinta dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba waa shakhsi firfircoon oo dadaal badan kana soo dhex bidhaatay xubnaha xaqdoor kugu maalnay xamday mahadsanid kun jeerna waan ku leenahay in adeer qofka shanaad haahiyo markaan cadaalad bay kusoo dhammaan doontaa miya haahiyo qofka shanaad ee halkan looga mahadceli doono waxa uu yahay xuseen axmed maxamuud motoorka ururka xaqdoor makiinada xaqdoor markaan saas idin leeyahay waa shakhsi firfircoon agtiisana aan ugu caajisan horta mar walba caan ku ah farxadda iyo dhool cadaynta shakhsi bashaash ah intaas kelmadiisa ama dabeecadiisa laakiin waa shakhsiga ugu shaqada badan markii yidhaahda ururka xaqdoor kaalin walbana uga soo baxa xaqdoor boos walba ururka xaqdoor usoo banaanaadana isagaa buuxiya inta qof kale laga soo helayo weligii afkiisa lagama hayo ninkaa xuseen ah maalin lagama maqlin hawshaa ma qaban karayo waxaan dhihi lahaa waxaa tahay Laylatul Qadri yaroo nagula soo hadiyeeyay gugii 2024 mahadsanid ku jeer walaalkay Xuseen qofka lixaad ee halkan caawa uga mahadcelinayno waa inantaasoo magaceedu yahay Ayaan Axmed Cabdi waa gabadh alla ku manaystay dulqaad dhabar adeeg aqoon iyo waxgaradnimo inta kale waa shakhsi caan ku ah sida kale waa shakhsi caan ku ah fahmad furnaan iyo kasmaalnimo kuma soo koobi karna halkan waxa ay Victoria Ayaan u qabatay xaqdoor laakiin haddaan wax yar ka carabaabno hal iyo laba horto Victoria Ayaan inanta la yiraahdo ama Ayaan Axmed Cabdi waa bare dugsiga xaqdoor ahna maamul ku xigeenka dugsiga xaqdoor ahna xubintii ugu firfircooneed shirkadda dhool ahna farsamayaqaanad heer sare ah ahna gudiyada xaqdoor gudiyada kuwoodii ugu fiicnaa intaas oo howl ahba si maalinla ah toddobaadla ah bilaa ay isugu qabanaysay waxaan ku tilmaamnaa ma naqaano mahadsanid kumanaan jeer ayaan ku leenahay walaashay qofka toddobaad ee inoogu xiga waa Maxamed Cali Aadan waaweynkii baa la soo gaaray miyaa waaya waa hiboolaha eeba ku manaystay howlkarnimo daacadnimo iyo waxlin reer xaqdoorna magac bay u bixiyeen waxay yidhaahdeen waa gacan dahabkii reer xaqdoor sababtuna waxa ay tahay dhanka looga sameynta posteris shahaadooyinka qabanqaabada xafladaha haysiinta shirkadda dhool iyo isku duubnida iyo abaabulidda baraha bulshada isaga naga filan oo waxaan leenahay saaxiib ilaahay gacanta ku barakeeyo jannadiina ilaahay nagu kulmiyo midda kale ninka dhaqanka uu leeyahay dadka kale oo dheeriya waxa ay tahay maadaama xirfadle uu yahay asaagiisa waxay yaqaanaan xirfadiisa asaagiisa ama dadka isku xirfadda yihiin wallahi inaysan laba shay oo bilaash ay nagu sameynaynin maxamedna 2 sano ayuu ururka xaqdoor horumarka xaqdoor ka shaqeynaya weligiisna lama uusan dhihin shilimaad iyo waxyaabaha noo tuuray waxaan ku leenahay Maxamed Cali mahadsanid kuma jeer walkii qofka sideedaad ee arna caawa halkan inooga mahadcelino asagana waxa uu yahay Cali Cabdullaahi Muxudiin Cali baasha loo garan og yahay oo ilaa lagu manaystay horto ugu deeqay sifooyinkii dadkii wanaagsanaa ee dunida soo maray oo xubin aan wax xil ah ururka xaqdoor ka hayn sidaas oo ay tahay mas'uuliyadda uu iska saaray ururka xaqdoor in uusan dhankiisa habeenka leeyahay wiilkan 2 sano ku dhawaad ururka xaqdoor uu ka tirsan yahay weligii dhaqaale laguma yeelan kulan ma uusan maqnaan ilaa arrin weyn ku soo korodho mooyee taas awgeed geed gaaban iyo geed dheer wuxuu u fuulaa sida uu fasax qaadan lahaa haday arrin ku soo korodho caawa xafladda ayuu nala joogaa sidaas ay tahay meel uusan amnigeedu fiicnayn ayuu joogaa naftiisana khatar gelin karta waxaasoo dhanna waxaa kala qaalisan ururka xaqdoor nuumuu sheegin in asiga ilaahay ballan dhex martay balse waxaan dareemaynaa in qadiyadda intaa la eg aysan ahayn wax dhayal ah mahadsanid kumanaan jeer oo halkeen Cali Cabdullaahi Muxudiin Cali Baash qofka ugu dambeeya sagaalaad ee caawa halkan uga mahadcelinayna waxa ay tahay qof aad inoogu qaaliya inoogu weyn
annagoo dhan reer xaqdoor marka aynu nahay nagalana rabana hambalyo gooniya waad fahmaysaan aan u malaynayaa yaa waa qofka waa Ayaan Cumar Weli oo loo garan og yahay ayeeyada xaqdoor waxaa jira horta qof aanan garanaynin ayeeyada xaqdoor oo reer xaqdoor taasi waa dhaanteed baan u malaynayaa uma abaalmarinayno kaliya shaqo ay xaqdoor u qabatay waxaa jiran dareen ku lamaan kaas oo ah in mar walba naga taxadarto sidii ubad ay dhashay oo kale ayeeyadu muddo qadka ay sheegeen haddii qof annaga inaga mida oo reer xaqdoor ah muddo qadka laga waayo qofka koobaad ee tagto waa iyada qofka koobaad ee raadisana waa iyada walahi dhammaanteen si maalinlaha horta noolama hadasho haddana way naga warqabtaa taladeeda go'aankeeda waxqabadkeeda waa waxa kaliya ururka xaqdoor halkaas ku soo gaaray boqolaal gudi oo ururka xaqdoor ay ka howlgalaan way ka howlgashaa balse ma jiro gudi ka maaranta ayeeyo waxaan ku leenahay mahadsanid kumanaan jeer baan ku mahadcelinaynaa halkaa horta dhalinyartii aan ugu mahadcelinayba halkaa inoogu soo gabagabowday waxaan u malaynayaa waxaan isla soo gaarnay guntii iyo gabagabadii halkan waxaa lagu bixin doonaa xaqul ciid fiican waxaana heli doona yaa heli doona waxaa heli doona intii usoo jeeday iyo intii wax fahantay baa heli doonta insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo halkan weydiimo baa lasoo dhigi doonaa marka koowaad weydiimada waa inoo kala horeeyaan qaybta dugsiga baan ku hormari doonaa insha Allah dugsiga xaqdoor ee dhalinyartan kala jabisay waqti nasiib baa dooran doonaa insha Allah waa soo dhigi doonaa qolka generalka baan soo dhigayaa weydiimaha ama qaybta dugsiga bay gooni u tahay 5 weydiimood baa ku xusan halkan waxaa saaran dhalinyaro hore u qalin jabisay iyo dhalinyaro dugsiga xaqdoor hore uga sii qalin jabisay oo difacooyinkii hore ka qalin jabisay halkan baan soo dhigi doonaa insha Allah dugsiyadoodii waxaa weeye waa la dooran doonaa weydiimaha ku xusanna waa idin weydiin doonaa hadduu ilaahay yiraahdo waa hagaag baa mahad la dhegeystayaal kuwa dadaala xiga kuwa xaqalceedkii hilaa mudan kuwa halkan nala soo gaadhaa mudan kuwa mutaystaa leh kuwa dhawar adeegaa leh dhegeystayaal diyaaradii aan caawa fiidkii kasoo raacnay degidda diyaaradda xaqdoor international airport hadda way sii degaysaa yaa lasii diyaar garoobo yaa diyaaraddaas kabsanka ah oo inoo dejin doona walaasheen xawtaako waad mahadsantahay walaashay caraweeloy dhegeystayaal waa guntii iyo gabagabadii xafladeena quruxda badnayd waxaan ku soo xidhayaa duraansi ama duco aan eebbe ka rajaynayo inuu naga aqbalo kusoo dhawow الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي دنبجينا هوري دنبجينا دنب الله هدافو إلهي دنبجينا هوري دنبجينا دنب الله هدافو أنت دبعتي تنالا دبعتي ده كقاضي إلهي أمة المسلمين تدين ميل والبيكة شوغان الله أوجرجارو أنت دبعتي تن الله أوجرجارو أنت دمتي الله أقولنا حريستو إن الله لي أنت حنوسا الله عافية إن الله لي أنت بكتا الله بوغدايو إن الله لي أنت داوعا الله بوغدايو ربي waxaan ka rajaynayaa aan ila alla ka baryaynaa waa 22kii Ramadaan waa 10kii dambe ee cadaabka la isku xoreynayay habeenkiisii koobaad weeyaan waa habeen tiradu ay dheer tahay oo Laylatul Qadri loo badinayo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ummadeena Soomaaliyeed inuu laabahooda isku boogadhayo inuu alla burcad isku mariyo in kuwa isjeclaada alla uu ka dhigo kuwii dalkooda iyo dadkooda iyo diintoodaba u halgama oo ilaashada oo wax u qabta oo anfaca inuu alla ka dhigo ummadda Soomaaliyeed inuu alla uu ka saaro abaaraha ay ku jiraan colaadaha ku daba dheeraaday inuu alla ka saaro ummadda Soomaaliyeed inuu alla miirkoodii u soo celiyo oo waxa ay isku yihiin iyo waxa ka dhaxeeya iyo xididnimadooda iyo ehelnimadooda inuu alla istareensiiyo oo alla is-ogeysiiyo oo kuwa garasho iyo garawshaba leh ay alla uu ka dhigo ilaahay inuu madaxda inoo hagaajiyo alla inuu madaxda inoo hagaajiyo ilaahay inuu dulmiga iyo cadaalad darrada ummadda Soomaaliyeed uu ka dhex qabtay isku dhex samaynayaan inuu alla dhulkeena barwaaqada ah kuwii ka faa'iideysta ee barwaaqo sooran ku noolaada alla inuu inaga dhigo reer xaqdoor waxaan ugu ducaynayaa iyo dhalinyarada ummadda Soomaaliyeed ee la asaaga ah ee la ayniga ah ee la faca ah waxaan rabbi uga rajaynayaa ugu ducaynayaa in ay noqdaan kuwii
bedeli lahaa jiilashii lasoo dhaafay, kuwii bedeli lahaa ee doorin lahaa taariikhdii madoobeyd, kuwii soo saari lahaa taariikh qurux badan, kuwii hogaamin lahaa ummadda Soomaaliyeed sidii uu Rabbi raalli ka ahaa uu Nebi Maxamed ula dhaqmay ummaddii uu hogaamiyey sidaasi la mid ah inaan inaguna u hogaamino ummaddeena Soomaaliyeed, inuu alla inaga dhigo kuwii raaca jidka toosan, kuwii rafiiq la noqda Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam iyo asxaabtiisii, inuu alla inaga dhigo. xaqdoor waxaan leeyahay caawa laga guubaad jirtateen, ilaahay gugan gugiisa bashbash iyo barwaaqo allaha inagu gaarsiiyo, inagoo isku laab xaaran isku qalbi fiyow inuu alla ina wada gaarsiiyo gugan gugiisa, inuu alla gugan gugiisa ina gaarsiiyo inagoo intii aan qabanay hadda in ka badan 2 jibaarkeed 10 jibaarkeed kuwa qabtay inagoo ah, inuu alla ina gaarsiiyo ummadeena, inuu alla ina garansiiyo inta inaga dhiman ee garaad ah, inta inaga dhiman ee waayar aragnimo ah, inta inaga dhiman ee garasho ah, inuu alla inagu soo kordhiyo gugan soo socda biidnillaahi caza wajalla. waxaan rabbi ka baryayaa dunuubtii waalidiinteen kuwii hore ay u galeen iyo kuwa ay hadda gelayaan iyo kuwa timaadada ay geli doonaan ba alla inuu u dembi dhaafo, inuu ilaahay iyagana uu garadsiiyo dadkooda iyo dalkooda iyo naxariista iyo diintooda uu alla uu fahansiiyo. ciddii uu alla uu jeclaada diintiisa ayuu fahansiiyaa. ilaahay qalbiyadeena ha adkeeyo, ilaahay qalbiyadeena ha ku suga diinta islaamka, ilaahay dhabarkeena ha adkeeyo, ilaahay lugaheena aan ku taaganahay allah inoo adkeeyo. ilaahay ha inaga dhigo kuwa samirka maciin bida, kuwa tala saarashada alla maciin bida, kuwa mar walba rabbi ku tiirsan oo ku teersan oo mar walba rabbi u hoggaansan allah ha inaga dhigo. intaas aan rabbi ka barinay inuu alla inaga aqbalo, inuu rabbi inaga aqbalo ayaan ilaahay ka baryayaa. ilaahu naga aqbal, allahu naga aqbal, allahu naga aqbal, allahu naga aqbal. allahumma salli wa sallim ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. faatixa idil ahaantiinba maatay ducadaas biidnillaahi caza wajalla. koleyba ururka xaqdooray waxaan ogeysinayaan guddoomiyaha ayaanan ka hor dhicina fasaxun baa la geli doonaa hadda. koley guddoomiye kusoo dhawow fasaxa u shaaci dhalinyarada, inta kalena waa laga dabageyn doonaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عافمad qabtaan oo rajeynayay waqtiyadii dambana waan isla soo gaarnay kowdii bay maraysaa ma garat. horto waxaan gelaynaa 10kii dambe bisha Ramadaan, 10kii ugu khayrka badnaa bisha Ramadaan. saaliyaajligeed waxa weeye fasax baynu nahay 10kan dambe bisha Ramadaan, sidoo kale ciidana way inoogu xigtaa iyaduna maalmaha ciidana fasax baan ku jirnaa. insha Allah waa idiin soo shaaci doonaa waqtiyada la soo laaban doono insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo. laakiin fasax baynu galnay 10kan dambe aynu cibaadaysano, ilaahayna inaga dhigo kuwii ka faa'iideysta 10kan dambe bisha Ramadaan khayrkeeda waa ina seegin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.